السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxa waaye safar degdeg ah waxaan kusoo aaday Gaarisa. nina waxaan ku dhahay neurology isii qabo, markaas wuxuu isii qabtay double ilaahay baar meesha seexana. wallahi nik seexana horta boosa u banaan. banaanka u baxay waa iska taqaaniin Gaarisa waxa waaye meel iska kulul waaye. run ilaahay mukeebkeeda wuxuu marayaa mataqaana mukeebka Gaarisa wuxuu marayaa sug hadaa idin tuso 24 air conditionka ama qaboojiyaha qofba sida uu yaqaan. marka anigana way kaas loo qaasan ku dhex jira soo marka banaanka u yar baxay waa soo yar adeegtay waa ii sheekay magaalada Gaarisa aad ay u kulushay mogtahay. marka wararkayga qabowga ahaa waa inaan soo beebeesto the face wash waxa iska doontay. marka waxa waaye xoogayaan rabaa inaan iska soo yeesheedo waxa waaye kafeegayga waa iska diyaarsan waa aragtaan. marka insha Allah هاي ديار اوكي marka haduu ilaahay raado waxa waa isla soconaynaa kulay video war waa inaan duubo inta aan duubin ka hor waxa waaye waa inaan qaqaweysto oo deeni weyn ba ahay oo aan shanlaysto oo balay aan iska dhigo ma fahanta bariyaan damba waxa li waxa manayn nin fool xun baa tahay oo isqurx baa leedahay. oh my god nin is soo diyaariyay ma u xumiyaa malena shay Gaarisa waa idin salaamay Gaarisa waa idin salaamay dhammaan asxaabtayda meel kasto aad ka joogtaan adduunka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. waa idin salaamay dhammaan asxaabtayda meel kasto aad adduunka ka joogtaan. waa barnaamijkeeni socdaalka kaamirada waxaan idinka soo salaamayaa caawana magaalada Gaarisa cadde. waxaan idinka soo salaamayaa magaalada Gaarisa. waxaan safar si kedisa ugu soo aaday magaalada Gaarisa xalay koor dambe waliba xalay xiliyadii laaya 3 habeenimo ama sida u taqaano 9 habeenimo ayaan si degdeg ah ku soo aaday. wallahi arin ayaan u soo aaday ilaahayna waa inoo fududeeyay alxamdulillah. sida ugu quruxda badnayd ayaan ugu dhamaatay. ilaahay ayaan ugu mahadinaynaa aniga iyo dhammaan asxaabtayda intii la socotayba alxamdulillah. taa marka halka uga gudbo magaalada Gaarisa wallahi waa qandac mataqaana qandac xoogaa waxa waaye mataqaana dadka si fiican biyaha u cabaada tahay mataqaana dhididka ka dhamaanay. adigu saaka aroorta ay hawsha ii dhamaatay aan u imiday alxamdulillah. markii aan ka soo noqday kadib yani gurigan aan deganahay aan imiday waxaan dibadda ayaan yar baxay horta yaan mid ka iloobin guriga aan deganahay runtii Gaarisa horta waa magaalo maasha Allah waa magaalo wallahi qurux badan jawigeeda macaan yahay xogaa kuleel yani dad qabowga aan u baahnayn ugu jira kuleelka u baahan. dadka oo waxaa jira kuleelka aan u baahnayn oo qabow u baahan soo wallahi qofka bini aadamka intuu kuleel xamili karo qabow horta ma xamili karo. reer Nairobi caawa mataqaana anigu reer Nairobi ma ahi haddaan fariin u diro runtii way aad ay u wanaagsan tahay marka qaar inaad soo booqato magaalooyinka kugu xayndaaban si macnaha ay jawiga uga warhaysid. run ahaantii jawiga waa jawi aad u qurux badan. horta guriga aan ku jiro waa guri yani saa u taqaaniin ba air conditioner ku jiro ama mataqaana waxa ku jira bahalkii guryaha qaboojinaya arinu saa u taqaanid air condition maxaa waaye mukeef dadka qaar af Soomaaliga mukeef air condition geedka darbiga la surayay oo guryaha qaboojinaya geedka qabowga keenay adi saa u taqaanid. run ahaantii wuxuu ii joogaa 24 centigrade ii joogaa 24 ayuu ii joogaa. yani jawiga wuu kulul yahay sax inta aan qolka ku jiro waa jawi macaan laakiin dibadda tan u baxo waxa umaleesaa yani in la yacaburnayo ama in neefta lagu dhijinayo. of course kuleelka banaanka ka jiro wuu ka awood badan yahay qabowga gudaha ku haystay. marka wax walba horta ilaahay baa lagu xamdiyaa maasha Allah. reer Gaarisa waxaan isleeyahay waa darajo ay dheer yihiin dadka qabowga macnaha cimilooyinka zaidka u qabow dadka joogo waa darajo ay dheer yihiin runtii yani kuleelka ma aha mid macnaha hagaasiyay shaqadooda hagaasiyay yani wax soo saarkooda hagaasiyay waxbarashadooda ma aha
run ahaantii galabta magaalada si fiican u dhex qaaday maraan meel supermarket aan alaab u doontay waa magaalo aad u qurux badan waxaa ku yaalo de inta magaalooyinka caasimadaha ku yaala ku yaalo waxaa ku yaalo supermarketyo aad u waaweyn waxaa ku yaalo mataqaanaa meelo mataqaanaa cafe area oo aad u qurux badan ama mataqaanaa meelaha kafeega lagu cabo so marka Garissa way dhameystiran tahay sida aniga aaminsanahay reer Garissa waad raaxaysanaysaan waa idin ogahay adeer wuxuu yiri ninka ahaa garam adeer magaalada kuleelka siduu ku noolaanaysa markay ka dhaqaaqdo meel qabow tagaysa adeerkii burbur ahaa baa ku qabanay alxamdulillah astaghfirullah markii meel qabow tagta sida meel kuleel ku joogtay meel qabow markii tagta markii sidaa ku seexanaysid adiga dhan waxaad dareemaysaa kii jabjab waa isku ka imaanaysaa lafta inta muruqa luqunta meel kasta waa ku jabaysaa alxamdulillah astaghfirullah adiga dhan waxaan u malaynay 10 sano inaad safar ku jirto alxamdulillah astaghfirullah ninkii garam aliga gaarsiiyo saaxiibkay bariyaan ma aqaan waxa waaye hawadu ka maqan yahay laakiin anaa ku siisimay waxa waaye markuu soo galan waa dhuumana markuu ka maqan yahayna anaa wadanaay alxamdulillah astaghfirullah markaan kafta geeta uga gudbo runtii magaalada Garissa ana ahaanteeda waan ku haystaa waa magaalo qurux badan waa magaalo shidan waa magaalo aan isleeyahay macnaha waad ku noolaan kartaa in muddo ah dadkan degan waxaa ku badan Soomaali waxaa la degan dad Kenyaan ah yacni ama dadka u dhashay macnaha wadanka Kenya waxaa kaloo ku nool Soomaali ku dhalatay wadanka Kenya ama Soomaali something Soomaalida dadka kale waxay dhahaan Soomaali sujuud ay dhahaan marka boqolkiiba 80 waxa ku nool Soomaali baa ku badan dadka kalena way la degaan maasha Allah jawiga markii aan ka sheekeeyo waa jawi iska macnaha waaga markuu soo bariyo hal saac marka maris subaxnimo maybe inay ku tahay amal 6 saac ama 7 saac amal oo malaynaysa yani soo iftiinka iyo qorraxda si u joogto maasha Allah dad badan oo u baahan way jiraan de ma dhahay dadka ka maqnaada jawigan soo booqdo waan dhahayaa kulay hawlaha aanu imade qaarna way dhamaadeen qaarna way dhiman yihiin ninaan ku ii qabo loo jeesay markaas wuxuu ii qabtay double way qabtay so marka kulay aniga iyo waayarahayga iyo computerkayga iyo managa badnaa umaleynaa iyo kaameradayda barnaamijkan waa barnaamijka socdaalka kaamirada mararka qaar insha Allah taala waxa dhici doonta inaan ku casumo dhalinyaro kamid ah daawadayaasha ku xiran barnaamijka socdaalka kaamirada insha Allah taala description ka ayaan ku soo qori doonaa qaabka macnaha aan u wada xiriireyno qofkii aan rabo barnaamijka inaan kula sheekaysto insha Allah taala sida hadda ka hor ciidi يعني أي نوغلا قيب قاتين برنامج كينا داداد يو كنول دافه الدنيا برنامج كسؤالك كاميرا وحان رجينا إن شاء الله تعالى إن ضد بدن ونغا مقن عن كلا قيب قادنا إن شاء الله برنامج كان رنهانتي يعني مركب ميلكستون تقوى إذن ناس السعودية إسلا وحانو ملينا بيشان لحظة وحان ملينا لو صفر من 6 أيضا مر منباسا راحة فأورد كنتي وأيقا ورهيسين waa soo noqday safar kale ay soo galay laakiin ka kama idan warheelin so that's my private family so marka waa safar aniga family-kayga noqosay meel kale ayaan ku aadnay waan soo noqonay safarkii saddexaad waa kan Garissa ku soo aaday so marka intaan barnaamij caynkan ku kulmayno maxay idinkaga tagaa amaana Allah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حالي موية ميلان جيري مشغول كذا نها عوانا دولكوا مدو أظن إيمو قنين عني وما مقصودي مهيغا كي قلقعال مجده سيميري أيبو ما حيو جايل بيميران ها marka waxa way insha Allah taala barnaamijka tijaab codkaagana waan qaban doonaa wada shaqeyn wanaagsan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.